wuxuu dhakhtarkii ugu dhaaway waxay ahayd wax bur ku jiro saliid iyo sokor go'aan ma qaadan kartaa inta ku qaliinkan gelin ka hor go'aankaas ma qaadan kartaa xalay ayaa fanaanka Dayaxdal Nuurshe waxa uu soo bandhigay qoraalkan waxa uu leeyahay xaaskeyga ayaa iiga xanuunsan ee iigu soo duceeya walaalahayga Soomaaliyeedo qoraalkan akhri Soomaalidii badi way iska indhatireen haatan farxiyo waa ay geeriyootay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun gabadhan sawirkeeda aad arki kartaan waa Farxiya the Boss Lady xaaskii fanaanka weyn ee Dayaxdal Nuurshe haatan ma noolo oo adduunkan dhalaalka badan way isaga tagtay waliba gabadhan waxa ay u geeriyootay xanuun si zaa'id ah u hayay maalmihii la soo dhaafay haddaba waxaan rabaa inaan kula wadaago geerida Farxiya the Boss Lady mid kamid ah hablihii baraha bulshada loogu jeclaa balse intaanan guda galin ilaahay dartiis ayaan kaaga codsanayaa in qaybta hoose ee commentiga aad ugu soo duceyso inuu ilaahay kitaabkeeda midigta ka siiyo gabadhan aad sawirkeeda arki kartaan ee markaasi haybada iyo wanaagga uu ka muuqday balse haatan halkii loo badnaa ee aakhiro aaday ha ka baqaylin maanta inaad qaybta hoose ee commentiga ugu duceyso muuqaalkana like saar si saaxiibo badan uu gaaro una share garee saaxiibada Facebook kugu weheliyay si saaxiibadaada ay ducada qayb kaga noqdaan oo ay walaasheen Farxiya markaasi ugu soo duceeyaan ilaahayna ha u naxariiste aad iyo aad ayaad u mahadsantahay inuu guda galno Farxiya the Boss Lady mid kamid ah gabdhihii loogu jeclaa social media gaar ahaan aaladaha TikTok iyo Facebook ayaa ku geeriyootay xalay xilli dambe magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxaa la sheegay in gabadhan maalmihii la soo dhaafay ay xanuunsanaysay isla markaana xanuuno markaasi ay ku soo kordheen isbitaalka la geeyay gabadhan ayaa xaaladeeda caafimaad waxa uu ku dadaalay in sideedii hore uu ku soo celsho balse haddii ay tii rabbi taagan tahay qof waliba ma celin karo naf socota oo aakhiro u socota fanaanka Soomaaliyeed ee Dayaxdal Nuurshe ayaa xaaskiisa xilliga ay markaasi aad u xanuunsanaysay si weyn uga qayb qaadanayay sidii ay caafimaadkeeda u heli lahayd laakiin isaga dhaqaatiirtii iyo ehelka Farxiyaba way u soo rageli waayeen in ay markaasi naftan baxaysa markaasi ay badbaado u fidiyaan waxa la sheegay Farxiya in maalmahan si gaar ah ay u xanuunsanaysay xalay ayaa fanaanka Dayaxdal Nuurshe waxa uu soo bandhigay qoraalkan waxa uu leeyahay xaaskeyga ayaa iiga xanuunsan ee iigu soo duceeya walaalahayga Soomaaliyeedo qoraalkan akhri Soomaalidii badi way iska indhatireen haatan Farxiya waa ay geeriyootay ilaahay ha u naxariisto haddii aadan xalay dadkii gabadhan u duceeyay in ay ilaahay caafimaad siiyo aadan ka mid noqon haatan waxaan ka codsanayaa inaad qaybta hoose ee commentiga aad ugu duceysid inuu ilaahay Farxiya jannatul firdaws ka waraabiyo maadaama ay ahayd gabar afkeeda iyo adinkeedaba ay muslimiinta ka nabad galeen inta ay dunidan quruxda badan saarneedna ay ku nooleed markaasi sharaf iyo wanaag iyo ixtiraam ay u muujin jirtay dadka markaasi ka waaweyn iyo dadka ka yaryarba sidoo kale Farxiyo waxay ahayd gabar wanaaga ka talisa waxa la xasuustaa in ilaa iyo dhowr Ramadaan ay markaasi dad masaakiin ah ay afurin jireen iyada iyo waliba saygeeda Dayaxdal Nuurshe oo haatan si aad ah markaasi u murugoonaya waliba Farxiyo waxa ay dayax ku buushgareen jirtay isla markaana mar walba ay ku cadaadin jirtay in dadka liito oo waliba dhaqaale ahaan iyo maaliyad ahaanba ka liito inuu garab istaago taasina waxay keentay in Dayaxdal Nuurshe uu soo saaro dad badan oo baraha bulshada haatan caan ka ah isla markaana nolol aad u liidata markii hore ku jiray ilaahay ha u naxariisto waxaan tacsida la qaybsanayaa dhammaan markaasi beelweynta habar gidir oo ay gabadhan markaasi Farxiya lagu magacaabo ka baxday iyo sidoo kale saygeedii Dayaxdal Nuurshe oo haatan xaaladiisu isaguna markaasi ay halis tahay maadaama xaaskii uu adduunka ugu jeclaa ilaahay uu ka ofsaday ilaahay dhamaadka hadaad weeliso waxaan ka codsanayaa mar kale inaad muuqaalkan like saarto qaybta hoose ee commentigan ha hilmaamin inaad u duceyso marxuumad Farxiyo oo ku geeriyootay xalay xilli dambe magaalada caasimadda ah ee Muqdisho nabadgelyo